madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbul xaakimka kulmiye markii uu gaaray xarunta guud ee xisbiga waxa ku qaabilay hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye waxaanu madaxweynuhu kulan is-xoguraysi la qaatay guddida qabanqaabada shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye inta kadib madaxweynuhu wuxuu madal kala hadlay haweenweynaha xisbiga kulmiye ee xarunta ku sugnaa maanta waxa noo sharafa aragii wasiirada la socdaba inaanu nimaadno xisbiga kulmiye xaruntiisa oo aanu la kulanno haweenweynihii xisbiga kulmiye ee xisbiga u ahaa lafdhabarta walaalayaal waxaynu ognahay dhibtii idinka soo gaadhay doorashada iyo hawsha u marteen dumar ahaan inay ahayd tii ugu badnayd markhaati baanu ka nahay habluhu iyagaa yidhi kulmiye annaga xisbiga kulmiya oo xisbigu muxuu yahay waa dad su tagayo dowladda wanaagsan dhisaaya oo idin horumarinaya innagaa balantaa gallay macid baana gelsiisay macid baana soo doortay soo halkan lacag maydaan iman shirkad maaha macaash qaataan dhibaata u timaadeen laakiin waanu isxil saarnaa waxaanu nidhi haddaan kulmiye nahay waxaanu nahay dad gobolladoo dhana oo Soomaaliland darasa oo doonaya inaynu dhisno dalkeena oo maxaynu u dhisaynaa waxaynu wada leenahay oo ina wada anfaca oo dowladda oo dhibaatadan kala qoqobka inaga saartaabay u wada soconaabaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in xukuumaddiisu dhabarka u ridatay isku soo dhaweynta bulshada si looga baxo dagaalka ahliga ee dalka ku soo noqnoqda labada sano u dambeeyay dowladda Israa'iil waxaan la halgameynay oo waqtiga inta badan ku baxday oo saxa oo xooggeenu ku baxay oo taankeenu ku baxay in dadkeena ay soo ogoleysiino colaadda dhexdooda ah deegaamada isku dhacooda waxay u baahan tahay in aynu dalka marka la isdoorto qofka iyo dowladda doonina aynu si ballaaran u wada fikirno maanta dalku xuduudihiisa oo dhan waa nabad oo cadow looga baqayo soo weerarada dalka waxa kaloo guul laga gaaro ogtihiin amniga magaalooyinka waaweyn oo intaasoo qof isku timi madaxweynuhu dumarka waa nicmo geed buu iskaga xiray wala taxawaara horta anaa ugu dhow waxaad ii dhiibteen hawl waxay ugu tirahdeen hawshaa fuli dalka sharciga ku soo dabaan dumarka wixii hawlna soo dhex marto ee hawl xisbi naga dhexayso ee hawl dowlad naga dhexayso dariiqooda waliba ixtiraam loo ragga ka mudan baan mariya waxaanu nahay dowladdii u horreysay tii siiraayo waswasa kulmiye haddaanu nahay annagu waa sii xoojinay ee hablaha marlabaadkii intuu kaabinadku isku raacay u gudbisay xaqooda siyaasiga aynu siiyo mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay in doorashooyinka dalka Soomaaliland ay uga qabsoomayaan waqtigii loo cayimay isagoo shacbiga Soomaaliland madaxweynuhu fariin u diray maanta doorashadaas waxaan jecelahay ramadaanta hadday maalmo dambe dhaafteen aan u dhaafin waayo haddaynu doonayno inuu dalku horumaro ubadkeena aynu uga taagno dowlad ay mahadiyaan iyo mustaqbalka dambe wixii bini aadam tijaabiye la soo maray baynu maraynaa meel cusub oo gaaban kaga boodi karamayno taasina waxay tahay in tala dalka la wadaago oo maxaa tala dalka lagu wadaagaya waxaa lagu wadaagayaa 5 sano markii lagu ballamay in doorashada dhacdo haddii koox la doortay ay tiraa dhici maayo intaan doonaan joogaya lagu heshiin maayo waxaanu doonaynaa inaynu xaqiijino waqtigii la doortay doorashada in waqtigeedii soo celiyo waxaan weliba leeyahay doorashada soo socotana haddaynu kulmiye nahay aynu ka waaya aragno ka u cid joogay ka waddan jooga walaalka aynu tartanno sida ardayda imtixaanka ugu tartanto yaynaan dhaqankeennii iyo walaaltinimadeennii iyo dadnimadeena ku xadgudubaan leeyahay waayo aragtaan aan ka qaadano soo socoto waa inaynu maskaxda ka heshiinaa iyo maanka ka taajirka ka faqiirka gabadha dhalinyarada oday haddaynu halkaa gaari weyno inteed baan israacimnay inta badan haddii halkaas u raaci weydo meel ku gaari mayno hay'ad baa caawinaysa iyo cid baan caawin ka sugaayay oo laga soo gurmaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dul istaagay kulanka uu la qaatay guddida qabanqaabada shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye iyo waxyaabaha ka soo baxay imika waxaan ka soo baxay qolada qabanqaabada waxaan isla waafaqsanahay oo inuu kulmiyahan isla ogolahay bal ta dhex maraysa qaranka iyo sharciyada qaranka ha joogto waar kulmiye dhexdiisa
ergada soo socota guddidii qabanqaabadana walaa cidoo ka joogtahay waxay yeelaysaan hablaha si ay naga cabanine in badan baanu ka badsanay reeraha waxaad wadaan si hablaha waxaa loo dhirkaa loo buuxiyo hablaha waan leeyahay waan isku raacsanahay mana aha mid laydinku beernaxawsanayo horena kulmiya wuu ahaa ka hor madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaa madasha ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga kulmiye xasan siciid yuusuf gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye dalay shiro faarax wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga yurub abiib cabdi iyo wasiirka shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilan hinde jaamac xirsi gaani oo ku dheeraaday kaalinta mugga leh ee haweenku ka qaateen guulihii istaba jooggahaa ee doorashooyinkii dalka ka dhacay uu ka soo hooyey xisbiga kulmiye madaxweyne halkan waxaa fadhiya haweenweynihii xisbiga kulmiye waa ubaxii xisbiga bili jiray qurxin jiray hawl badan iyo halgan badan aynala soo galay ilaa haddana sidii u jeeda niyad sami ku soo dhaweynaya mudane madaxweyne ku soo dhawow xisbigaagii hablahaagii mujaahidiintaadii kaadiriintaadii hablihii xisbiga kulmiye ee aan aqoonin guurguurka iyo dheeldheelka ee ku abtirsan jiray xisbiga kulmiye waxaanu leenahay musharaxiinta ragga intay qaataan intoodii baan doonaa weli safka hore in madaxweynena la geliyo oo aan qabiilna lagu qaadan laakiinna lagu qaato xisbinimo oo la yidhahdo yaa xisbigaa usoo hargamay yaa xisbigaa wuxuu qabtay yaa xisbiga ahaa doorashooyinka insha allah waynu geli doonaa waanaynu garab joogsan doonaa hablaha israxa haddii sidaad baarlamaanka ka maqlayseen dumarku hays doortaan bay yidhaahdeen qodob halkan siinaya madaxweynuhu inoo gudbiyey kootadii laakiin sidaad idinkuba warka ku haysaan hays sharaxaan bay yidhahdeen kalsoonideeda isku sharaxo iminka imisaynu halkan ku fadhinaa ma ballan qaadaysaan inaa gabadho codaynaysaa hadduu macalodaygaau is-sharaxo oo walaalkaa is-sharaxo marka wax weeyaan codka innagaa isku hayna waa inaan isdooranno waa inaan hablaha isgarab taagno waa inaynu u codaynaynu waxaan qirayaa in ay haweenka xisbiga kulmiye yihiin shayga ay dheer yihiin axsaabta kale isku xidhnaanta iyo wada shaqaynta iyo dadaalka iyo runtii juhdiga ay geliyaan xisbiga waa waxa ay xisbiyada kale dheer yihiin runtii baan qabaa ee ay mar walba ku mutaystaan in ay ku soo noqdaan safxadda siyaasadda iyo hoggaanka talada dalka